barnaamijkan oo ahaa mid nabadeed ayaa dadka reer Cadaado ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo koodii bishan Luuliyo ku sheegay in Soomareeb lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta iyo midka ah doorashada Galmudug dadkan oo watay boorar ay ku qoran yihiin maqaamka Cadaado waa in la cadeeyaa ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka laabato go'aankeeda ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo iyagu dareenkooda cabiraya dhammaan dadka reer Cadaado halkan barnaamijna ay isugu soo baxeen waxay ka cabanayaan cadaalad darrada oo Galmudug loo qaban qaabiyay shirkeeda waxay ka cabanayaan sadbursiga la bixiyay waxay ka cabanayaan anagu waxaan rabnaa inaan warkayga cadeyno maanta dawladda Soomaaliya ma diidanin ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaarahaygii Cadaadan ku soo dhaweynay waa maamuusnay wuxuu noo sheegay in laga tashan doono dhismaha Galmudug laakiin hadda qodbadiisii waxa nooga muuqata in ay si hadal qaladii uu ka soo baxay dadka Soomaaliyeed waxay horumar ku gaari karaan wada jir iyo heshiis iyo wada ogol dawladnimada saasa loo gaari karaa hadii qofkii meel xirta oo dadka daladariska baabi'iyo oo awood ku qabsada la amaal mariyo dhibaato badan baa imaanaysa hadalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu furay bayj cusub oo ah cidii meel gasho oo ishubaysa oo awood ku qabsata wadan in la amaal marinayo oo la leeyahay bilad geesi baa leedihiin taasi cadaalad darro ku tahay Soomaaliya oo dhan Galmudug bay cadaalad darro ku tahay sadbursi bay ku tahay dadka halka lagu amaal mariyay Cadaaday 2012 ku soo duuleen xaraalay ku duuleen ciidamada qalabka sida xooga dalka Soomaaliyeed ayaa askar fara badan ka laayeen saraakiishoodii baa joogta ayagoo bareelisa inta cidii samaysay hadii la yiraahdo la amaal mariyo de waxa noqonaysa inuu qof kasta ciidan samaysto jabhad meel ku qabsado waxaan rabnaa maqaamka Cadaado ayadan u baahanahay bis only hadaan weyno Galmudugna dhulka hadii taala laga qaadi maayo dawladda Soomaaliyana waxa weeye hadii cadaalad darro nagu sameeyo qof cadaalad darro aad ku sameeyay awlaad khayrka sugeyn waxaan rabnaa waxaan ogolnahay madaxweynaha waxaan ogolnahay dawladda waxaan ogolnahay ra'iisul wasaaraha soo dhaweynay haddana ogolnahay inoo yimaadaan waxaan rabnaa cadaalad in Galmudug lagu dhiso hadii la waayo wixii calaamad su'aalo ka yimaado dawladda mas'uuliyadda soo laabanaysa gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayle oo loo yaqaan Shaarba Cadde oo kamid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay barnaamijka ayaa sheegay inaysan qaadan doonin cadaalad xumo sida uu hadalka u dhigay waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dawladda federaalka Soomaaliya waxa reer Cadaado ay ka cabanayaan waa cadaalad darro waxaan cadeynaynaa inaynan yeeleen haddaan reer Cadaado yeelimayno dhaqankeennii dhalinyaradeenni haweenkeenni dhammaan arrimaha bulshada oo dhan ma qaadanayno ma yeeleyno waxaan doonaynaa xuquuqda aan ku leenahay reer Galmudug waxaan doonaynaa wixii dawladdu ayada ay ku dhawaaqday waxaan doonaynaa wixii madaxweyne Xaaf oo ku dhawaaqay waxaan doonaynaa ballantii oo nala ballamay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo yiri wada tashi la sugu soo laabanayna tilaabadaas oo qaaday aadan uga xunahay mana doonayno mana qaadanayno barnaamijkan ay dhigeen bulshada Cadaado ayaa ku soo beegmayay xilli habeen hore ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka qayb galayay xaflad lagu xuseeyay kooda Luuliyo oo ka dhacaysay Soomareeb uu ku sheegay in Soomareeb ay tahay halka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta iyo midka doorashada Galmudug waxaana intaa wixii ka dambeeyay isa soo tiriyay cabashada ka soo yeeraysa bulshada Cadaado Sharmarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmiye magaalada Cadaado